googa waxaan u kariyo iyo waxa siiyo midna uma hayo. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعن ونكسن داود يال ملك السوجوتان سود وادة ما أنت وحميس كان نصارن هو سرات علي عافي وبره برشدات وقبصتي تاسي وقطسين سو جناع ستدا قار ديك ميرة تدا دباتدا وجي سنيان دتك مساكين تا ويدن وحيكون نوشة هاي مقالة هرجيسة سوماليلاند دباتة أدو فربضان بمتقانا يشي جانيسي hooyo siraad waxay haysataa laba wiil oo iga laftooda mataqaanaa xanuunsan maskaxdan laga jiro waa maamo waa yeel 98 meelahaas mataqaanaa da'deeda haddii la yareeyana 70 oo weli u dheeryahay xanuun iyo u dheeryahay muxuu ahaa fikri walbahaar weeye hooyo siraad markaad dhegaysata hadalladeeda waad xanuunsanaysaa haddii mataqaanaa aad leedahay damiir bini'aadinimo iyo mid islaamnimo intaba aniga waxay tiri waayeel ushaas ku kutubayo socon la yaan markaan dhowr maalin aan joogo guriga aan joogo oon waayo waxaan cuno iyo dadkan mataqaanaa xanuunsan waxaan siiyo yaa iska dhaqaaqaa bay tiri marka meelahaasaan wax dhigdhigtaa wixii aan kasoo helaa marka iyada haddana ku celiya iyaga saasoo jirto oo xaaladdu iska adag tahay haddana ganacsatadii haddasaan ogeyn somaliland wax walba waa lagu daray wax walba waa la qaliyay waa kii xildhibaan abiib maalid uu ka qaylinaya uu lahaa shidaalka barbaru tuuran yahay haamihii afku ka hayaaba u buuxsamay saasoo ay tahay dad gaaraba loo xiray oo lama rabo mataqaanaa in la sii daayo dadka waa lagu qaaliyey maciishadii waxaan la wada soconnay rootileydii in maalin dhoweyd intay shireen ee dheh rootiga aan qaaliyeenno ay isdhaarsanayeen waxaa artay oo buuq iyo qayli yaa ka dhacdo marka waxaad garan kartaa in dadkii danyarta iyo masaakiinta ahaa in marna ay ganacsato aysan ka fikirin khayr allah siiyee maanta markii muuqaalkeeda baraha bulshada uu soo galay hooyadu iyada oo leh waa yeel baan nahay caruur xanuunsan baan haystaa wixii aan u heli lahaana mataqaanaay waxa iima gooyaan tuugsi oonan ehel u ahayn baan bilaabnay inaan tuugsanno ama tuugsanay haddana waxba uma gooyo marka kale aanan ehel u ahayn tuugsi sidiisa mataqaanaa wax ehel u ah ma jire waxaa weeye waa xishoodka iyo mataqaanaa dhoorsanaanta waayo tuugsiga waa wax xun aad u xun wey laakiin qofka markii meel u dhaqaaqa waayo iyo mataqaanaa ay ku khasbanaanayaan hooyadan waxaa lagu khasbay in intay waddada istaagta ay dawarsato hadda warsatay wixii ay soo heshay haddana meel ay geyso oo wax ku cuntay weyday khayr allah siiyee waxaa markiiba mataqaanaa ajiibay oo hadalkii maamada danqay gudoomiyaha xisbiga waddani ciro cabdiraxmaan ciro oon ogeyn in waxyaabo badan oo taariikhiya inuu sameeyo maalin baan arkayay isagoo mataqaanaa u socda burco xilliga ololihii doorashada maamo waayeel oo jiidayso inuu u imaado wadda intuu ka qaaday isaga uu biyo waraabiyey uu kadibna mataqaanaay intuu lacagtii u yiri mataqaanaa ku dhiso wixii u baahanta kolley cabdiraxmaan ciro maanta xafiiskiisa ku qaabilay wixii markaas ay u baahneed oo mataqaanaa dhiig joojin baa la yidhahdaa isagana mataqaanaa wuu la sameeyey iyo dad badan oo soomaaliyeed oo dhalinyar iyagana is abaabulay yaa mataqaanaa maamada wax la qabanay hooyadan wayba hadasho qaylisay markii xanuunkii hayay daraaddii ee isreebi weyday bay sheegatay imise kunbaa saasoo kale mataqaanaa iyagan aamusan oo howlahan iyo dhibkan ay haystaan dadka reer somaliland maanta waxay dalbanayaan in wasiirka muxuu ahaa maaliyadda iyo ku-xigeenkiisa inay shaqada joojiyaan ay iscasilaan wasiirka ganacsiga iyo ku-xigeenkiisa in ay shaqada joojiyaan iscasilaan maxaa yeelay iyagaa maareen waayey iyagaa jaangoon waayey maciishada dalka doolarkii baa cirkaa tegay lacag somaliland waxaa qaban weyday dadkii rafaad badan baa haysta danyar iska badaaye dadkii wax haystay baa mataqaanaa waxay ku noolaadaan
dhibaato aada u xooggan baa jirta. hooyadan hadalkeeda maanta dad badan buu danqay. waxay u hadashay maanta dad badan oo masaakiin ah oo u caawin jiray cabdimaalik sheekh muuse coldoon oo maanta xiran. waayo markii isaga uu joogay dadkan oo kale lama arki jirin, inta badan wuu gacan qaban jiray. laakiin maadaama asaga maanta xabsi uu ku jiro, qof kaleoo booskiisa soo buuxiyeyna uusan jirin, dee dadkii maatidii masaakiintii gaajaa laynayso, gaaja la le-anayaan. marka dhibaato aada u xooggan wey. hooyadan waxay muujisay dareenkeeda ahaa in wax aysan u qalmin iyo wax aysan ahayn in maanta mataqaanaaye ay la soo diristay tuugsi oon ogeyn inuu xun yahay, inayntay bannaanka u tagtay ay dawoorsatay, ayna heli karin haddana wax nolosheeda kaafiyo. waa waayeel, qof xanuunsan haysto, waa hooyo ilmaheeda ka xanuunsan yihiin. intaasoo dhan waxaa iigu sii xanuun badnaa markaan arkay ay tiri layrkaas gurigayga soo geliyey way ga goosteen. waayo gurigii ay ku jirtay wuxuu ahaa jiingad ama laamayeeri, ninba sida u yaqaan. leerkii iftiinkii xataa habeenkii wax ku arki lahayd, kuwa iyagana manaxayaal ganacsatada ka mida way ka jirteen. way arkaan hooyadan waa yeelkee inay shaqayn karin. lacag keen bay ku leeyihiin, xageed ka keeni? ilma xanuunsan bay haysataa, eeda baa xanuunsan, iidaa waayeen. leerkii habeenkii wax ku arki lahaydna laga jaray. dadkana qaar waxaa dhehaysaa damiir xumada xaggee ka keeneen. soomaalida inta badan waa dad isjecel, waa dad islaam ah, waa dad wax bixiyo, waa dad gacan furan. laakiin waxaa ku dhex jira kuwa aad dhahaysaba dadkan mataqaanaa damiir soomaalinimo iyo islaamnimo midna kuma jiro. maamada intaa leeg waa yeelka ninka intuu soo kacay ka jarayo. bal haddii ku dhigta ka waran korontada, waayo wuxuu sameynayaa wax ilaahay mataqaanaa uusan farin, wax ilaahay raalli ka ahan buu samaynayaa. maamadaas waa yeelka ilmaha xanuunsan haysato intuu garab qaban lahaa oo wuxuusa mishaar u sayra asaga wax ku soo celin lahaa, waa hooyadiiyo kale yuu kasii jarayaa. marka waa dhibaatada ay sameynayaan qaybo badan oo ka mid ah bulshadeena, gaar ahaan ganacsatada. qaybo badan oo ganacsatada ka mid ah waa deegi miirato. waxay usoo shaqateen keliya shilin, waxay caawudaan shilin. ilaahay ma laha, rasuul ma yaqaanaan, waxay garanayaan ma laha. shilinkaas keliya ay garanayaan. kulley hadday dhintaan may la gelayaan igaa garan, waayo waxay caawudayeenba shilinkaas weeyo. ilaahay meeshii uu fara dhah kuma bixinayaan, iyo dadka masaakiinta in loo gargaaray la rabay. waa dhibaato xooggan oo haysata guud ahaan dadka soomaaliyeed ee danyarta, gaar ahaan dadka waayeelada, hooyooyinka ilmaha xanuunsan haysta, haddana aan helaynin caafimaad, aan helaynin waxay cunaan, aan shaqaysan karin. waa dhibaato xooggan. muuqaalka sii shargareeya. waad mahadsantihiin.